واسبدلي markuu arkay saxaabadiisu siday uga qayb qaateen arinta isugu taageen iyo sida wax loo soo ururiyay baahida muslimiintana looga qayb qaatay nabigu sallallahu rabbi wa sallam alayhi wajigiisi waa iftiimay oo waa dhalaalay gabal dahabad moodaa sidoo u iftiimay nabiga sallallahu alayhi wasallam wajigiisu yaani wuxuu ku farxay sida looga qayb qaatay musiibada muslimiinta haysata markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ruuxi jideeya jid khayr ah oo lagaga daydo oo dadku ku raacaan ajirkeedu leeyahay inta ku raacda gadaasheedana ajirkoodu kale leeyahay ayadoo ninna ajirkiisa laga nusqaamin ninkii jid xun jideeya oo lagaga daydo lagu raaco dambigeedu leeyahay inta ku raacda uga dambaysana dambigoodu kale leeyahay ayadoo ninna dambigiisa laga nusqaamin xadiidkaas uu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi موقف كاسي واكي رسولكينا صلوات ربي وسلام عليه موقف كاسي رسولكو استاغينا ضيشو مديه انغو ينو جيديني حالد نوعاسو كلا markay timaado la tafaacul keeda ayuu nabigu صلوات ربي وسلام عليه ummadii sabarayay ti iyo mid ka daran ba maanta ina haysato muslimiinta haysato waana ku fadeexaysanahayo inaga halkan joognay dariska la ee waxoogaga haysta ee ladan ee cunayna cabayna ee nabadgeliyada haysta ee ragga qaar koodna xoolo badan ay haystaan dadkaasa ku ibtilaysan oo ku imtixaanan liyanzura kayfa ta'malun sidaad sameeysan baa la idin fiirinaya ilaahayna tabaaraka wa ta'ala wax uma waayin inuu deeqana uma waayin masaa'ibta inuu ka qaadana rabbi tabaaraka wa ta'ala ma kari waayin laakiin waxa weeyaan waxa lagu fiirinaya ayagana waa la imtixaanaya dadna waa lagu imtixaanaya waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inuu yiri dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ruuxa dadka ugu manaafacaadka badan ugu anficida badan amalna alla wuxuu ugu jecel yahay farax aad ruux mu'mina geliso oo aad ka farxiso murug haysatay inaad ka qaado dayn uu qabayo culays ku haysay inaad ka gudo gaaja haysay inaad ka saarto gaaja haysay inaad ka saarto nabigu sallallahu alayhi wasallam ila ruux muslim oo walaalkay xaajadiisa iyo dantiisa isu taagoon u socdo ayaan ka jeclahay inaan bil masaajidka ku i'tikaaf ruux walaalkii raaca oo dantiisa ka shaqeeya ila uu dantiisa u gudo u sugo ilaahi ba tabaaraka wa ta'ala gomadiisa iyo lugtiisa sugaya maalinta qiyaamada maalinta ay luguhu simbirraxanayaan baahi in laga faa'iideysto u baahan baa meesha taala baahi aan laga aamusi karin baa meesha taala musiibo aan loo dulqaadan karaynin baa meesha taala musiibadaasi waxay u baahan tahay muslimiintu inay dareenkeedana yeeshaan jawaabteedana ay bixiyaan inta karaankooda ah oo ficil ahaan la isu taago maxaa la kari karaa waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi in uu yiri ruuxa u socda haweenta nin la'aanta ee cid hawsheeda isu taagta ayna jirin iyo miskiinka baahan hawlahooda ninka ka shaqeynaya ruuxa ka shaqeynaya waxba uu ururinaya waqtigiisu ku bixinaya tiisiibuu ku bixinaya dadkiibuu ula hadlayaa ruuxa saaciga arinta ku dadaalaya wuxuu la mid yahay nabi sallallahu alayhi wasallam mujaahidka jidka ilaahay ku jihaadayo la ajir yahay waxa kale uu la ajir yahay ruuxa maalinna sooman habeenna taagan habeenkii salaad buu taagan yahay maalintiina waa sooman yahay kaasuu la ajir yahay waxaan dhihi lahaa cidii waxaysata oo waxeli karta nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay dad uu nicmooyinkiisa ku khaas yeelo nicmooyinkiisa uu ku khaas yeelo ilaahay xikmadiisa weeye dadka qaarna wuu qadiyay qaarna wax buu siiyay qaar dhexdhexaad buu ka dhigay qaarna wuu sarraysiiyay oo adduunyadana ku farraqay waa xikmad ilaahay dad buu ilaahay nicamkiisa ku khaas yeelaa maxaa loogu khaas yeelay limanaafic alcibaad inay adoomada anfacaan baa loo siiyay
ma aha inay keligood cunaan ma aha inay keligood kaydsadaan ma aha in la jecel yahay ma aha in la doortay ee waxaa loo siiyey limanaafici alcibaad ilaahayna tabaaraka wa tacaala inta ay addoommada ku anfacayaan nicmadaa ilaahay waa u daynayaa markay diidaan oy ceshadaan kaydsadaan oy reebtaan ka xanaaqaan markii baahida muslimiinta la soo bandhigo ilaahay tabaaraka wa tacaala intuu ka siibo ka qaado buu cid kale ku wareejinaya watilka sunnatullahi tabaaraka wa tacaala shalay qoyan kii faqiir ahaa maanta xoolu haystaa kii qani ahaa oo taajir ahaana dariiqyaduu taagan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala baa arrimaha maamulaya siduu doonana u rogrogaya laakiin caqliyarada ibni aadamka waxay tahay maalinkaa wixii gacantiisa ku jira baa taladiisu awal iyo aakhirba tahay wuxuu soo marayna ma xusuusto waxa soo socdana ma fahmo laakiin maalinkaasuu ismahadiyaa waxoogaagaasuuna garaadkiisa iyo garashadiisu ku urursataa war ilaahay tabaaraka wa tacaala ka baqa kadalika kuntum min qablu in badanoo idinka mida shalaad soo qaxdeen in badanoo inaga mida qax noocaasaan marnay masaa'ib noocaasaan marnay ilaahay tabaaraka wa tacaala baa ku deeqayoo wax ku siiyoo ku dejiyey walaalkaaga muslimkaee maanta musiibadii haysato inaad u danqo weydaayey xisaabteedu waa dambaysaa rabbina tabaaraka wa tacaala nama halmaansana namana mooga allah tabaaraka wa tacaala walaalayaal ilaahay aan ka baqno tabaaraka wa tacaala musiibadan ha laga jawaabo dibad iyo gudaba muslimiintu waa inay dhaqaaqaan dadku waa walaalihiin waa dadkii diinta lahaa ee muslimiinta ahaa wey waa dad idinla dhashay waa ehelkiinnii waa eedo iyo habaryar iyo xidid iyo xigaal wey waa dadkaad wada dhalateen wey waa dadkaad isku diinta iyo mabdu idinka dhexeeyo wey waa dad maanta cidina ayna idinka sokayninoo intaa idin jira wey dadka noocaas inaan sidaa kaga gaabsannayo waa waxaan macquul ahayn marnama aan la qaadan karaynin wey muslimiinta dibadda jira iyo kuwa gudaha jooga iyo meel walbay joogaanba muslimiinta ha loo gurmado oo musiibadaa iyada ha laga jawaabo nin walba wixii karaankiisa uu kari karayo waxayna u baahnayna ma jiro hoy bay u baahan yihiin bannaan bay fadhfadhiyaan qoraxdaa ku dhacaysa qabowga habeenkiibaa ku dhacaya bannaan bay jiifaan hoy bay u baahan yihiin waa gaajaysan yihiinoo cuntay u baahan yihiin waa ooman yihiinoo biyay u baahan yihiin carruurtii baa nafaqa darro dhimanaysoo nafaqo u baahan waa yeelkii iyo duqaydii baa rafaadsanoo baaba'aysa waxay u baahan yihiin xataa maacuun bay u baahan yihiin weelkii xataa biyaha ay ku soo dhaansan lahaayeen ma hayaan dad jid dheer soo galay oo soo rafaaday oo qaar badan ka yimid oo intii timidna ay sagaraa tahay ummaddaasi meel walba ha loogu gurmado oo waddanka gudihiisii ha loogu gurmado oo meel kastoy tageenay u qaxeen ha loogu gurmado oo nin walba wixii uu kari kariya karaankiisa ha gurmado gudiyo masaajidda yacni mu'asasaadka jamciyaadka ha la isticmaalo cid kastoo xilkasana ha istaagto ama mas-uul ha noqdo ama muxuu ahaayey ruux caadiya ha noqdo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo hawshaasi waa ku imtixaanannahay ilaahayna tabaaraka wa tacaala imtixaankaasi waxaan rajaynaynaa inuusan nagu ridin dembina naga raacin musiibana ilaahay nagu keenin tabaaraka wa tacaala taa ayaga ku dhacday tu la mid ah way nagu imaan kartaayo waa inaad filato waa inaan marka aan si wada jir ah laysu taagoo la gurmado dadkaa loo gurmado wey masaajidda iyo goobaha yacni wax wey khayrka rag iyo dumarba wixii la heli karo hala keeno wax alla wixii la heli karo oo dadkaa waxtar u ah oo lacag ah oo dhar ah oo weelal ah oo hoy ah oo teendhooyin ah oo gogol ah wax kastoo la heli karo ummadda ha la soo gaadhsiiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala hana asturo allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu musiibada naga qaado allah tabaaraka wa tacaala muslimiinta ha u naxariisto dhibaatadana ilaahay ha naga qaado ilaahay tabaaraka wa tacaala dunuubteenna ha nooma qabto rabbina tabaaraka wa tacaala naxariistiisa waasaca ha nagula mucaamaloodo cuquubadana rabbi tabaaraka wa tacaala ummadda ha ka kor qaado
إننا الله ينوافجي تبارك وتعالى أمضى وحقبت كيدي قرمشديدة صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والفتن يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة